aad baan idin salaamayaa Soomaali meel kasta oo dunida joogtaanba mararka qaarkood waxa dhaa malaha qolaa ku waxyood Soomaali hore baan ugu sheegay in ay ka xun yihiin shabaab iyo Daesh ba ay ka xun tahay maamul beeleedka qabaliga ah Hargeysa ka dhisan ee Soomaali diidka argagixisada taageera inay ka xun yihiin shabaab sabab shabaab waa Soomaali laakiin dawladda ayay diidan yihiin maamulkay diidan yihiin iyagu inay xukumaan bay rabaan iyagu soo waxay diidan yihiin magaca Soomaaliyeed bay diidan yihiin oo ka soo horjeedaan Soomaalinimo ayay diidan yihiin Daesh bay ka xun yihiin hatta waayo dalkay kula joogan iyagoo Daesh way ka xun yihiin wayna taageeraan wax alla wax Soomaali dhibaato ku ah oo dhan amba ururkii Soomaali ka soo horjeeda midnimadeeda iyo qarannimadeeda iyo dawladeeda magaceeda Soomaaliyeed iyaga ayaa ka xun waxa marxaati ii noqonaya inan yar oo 7 jir ah la weydiiyay oo la yiri cadowga Somaliland waayo ina taayir waxa leedahay cadowga Somaliland waa Soomaaliya wixii gurigooda xaaladii gurigooda ayay dibadda u soo saarto sheegaysaa wixii gurigooda ka jiray ee lagu koriyay ayay sheegaysaa gurigooda marka waxa ka jira Soomaali diidnimo Soomaali nacayb Soomaali oo ay u arkayaan ciyaalka lagu korinayo cadowtinimo siyaada ah oo Soomaali ay u qabaan wax alla wax riisana oo Soomaali sida ugu yani cadawatada inta lagu qaadi karaan ma jirto oo ahayn in iyagu ay dawlad noqdaan Soomaaliyana halka ku sii baabaado waxa ka sii daran kuwa baarlamaanka jooga ee Soomaali kuma tala Somaliland kuma tala marka dawladda Soomaaliyeed ama baarlamaanka Soomaaliyeed ee xamar jooga waxaan leeyahay cadow baa walaal idin la ah oo walaal moodaysan waxa ka marxaatiya islaantii halka ka hadash ooyday markii uu yiri prime minister ku waxaan tagayaa Laascaano way ooyday way adkaysan kar wada way gariirtay way ooyday ilma siideys waxay ka xun tahay midnimada Soomaaliyeed iyo qarannimada Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed iyo aqoonsiga Khaatuma State ayay ka xumay marka kuwaasina qarannimada Soomaaliyeed bay halis ku yihiin dawladnimada Soomaaliyeed bay halis ku yihiin waayo wad arkaysaan ugxaantoodii caruurtoodii waxay leeyihiin cadow aan Soomaali ahayn malihin sidaad markaa u aaminaysaan oo taladii dalka wax uga siinaysaan oo baarlamaankii u fadhiyaan wax dhici karo lacag ku qaadanaya islaanta idin sheegaya marka baarlamaanku shirayaan arko daawado haddii nin Somaliland soo qaado way soo kacdaa inta kale way hurdaa Somaliland hadduu mid yiraahdo way soo ordi cid ku dooratay xamarna ma jirto cid ay ku matalaan ma jirto laakiin xumaan bay matalaan marka Soomaali waxaan u sii sheegay in ay ka xun yihiin shabaab iyo Daesh ba ay reerkaasi ka xun yihiin maamulka Hargeysa ee qabaliga ah ee Soomaali diidka ah ee argagixisada taageeri waxay ka xun yihiin shabaab iyo cid kasto Soomaali ka soo horjeedaba iyaga ayaa ka xun marka Soomaalina walaal bay moodaysaa dad Soomaaliyeed bay haystaan laakiin waxaan u maleynayaa maanta inaad aragteen wixii aan sheegayna inuu sax ah oo marxaati u hayno baarlamaankooda kuwa ku jira Soomaali lugahay jiidayaan qarannimaday diidan yihiin dawladnimaday diidan yihiin horumarkay diidan yihiin midnimada Soomaaliyeed bay diidan yihiin iminka Khaatuma marka la aqoonsado Khaatuma waa dawlad Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya waxay keensan kartaa saldhig military ciidankeeda keensan kartaa halkaas ka furan kartaa saldhig military oo Soomaali iyo qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed ku difaacdo ayay ka samaysan karaysaa maanta xaq u leedahay xaq bay maanta u leedahay Khaatuma waxay xaq u leedahay haddii lagu soo duulo inay difaacaan sababtoo ah Soomaali bay ka tirsan tahay kuwa kalena waa Soomaali diid waxaan kaloo rabaa inaan kelmad ku wadaado jirta la jirde maalintii Muuse Biixi ulaha waxbaan ka adagnahay aabahay baan ka kaadare sacabku u tumay maalintii islaantii adna lahayd waxaan budumiya dhulka in mid ka fiican baan dhisaynana qoladii sacabka tumaysay buu ahaa ee mashxaradiisay maanta wuxuu leeyahay wada hadal baan la galaynaa Khaatuma yalla gal dawladda Soomaaliya la gal wada hadal ida wada hadal kula galaysa ma jirto dawladda Soomaaliya qabiil bay wada hadal la galay takallama nimankii aggressionka ahaa ee dadka Soomaaliyeed ku xasuuqay Laascaanood ayaa rabtaa in la soo daayo waa dambiilayaal
ninkii kuu soo daadayana waa dambiile dadkii dumarka xasuuqay ee ummadda barakiciyey ee guryaha dumiyey ee dadka innocentkan waxba haysan hooyooyinka dadka vulnerableka ah dhammaantood xasuuqay miyaa la soo daynayaa ee waxaa mas-uulka ka ahaa waa sheeko weeyaan cid kuu soo day sharcigaan ogolaynba askari in la soo dayo waa suuragal laakiin nimankii madaxda ahaa lama soo dayn karo haba yaraate sharcigaana ogolayn soomaalina halkaasay imanaysa dowladda soomaaliyeedna khaatuman ka sugaynaa inay timaado oo saldhig military ka samaysato waayo maanta dowladda soomaaliya iyo soomaaliya way ogtahay cadowga quray leeyihiin waa reerka waa jabhadda hargeysa ka dhisan weeyaan shicibka maaha maamulka hargeysa weeyaan dadka badankoodu way ogyihiin 34 sannadood ina khayaali music loo tumayo waxaan jirin loo tumayo oo balaayo loo tumayo waxaan jirin loo akhriyayo laakiin kuwan maamulka joogay dee lacag bay ku qaadanayaan dadka cashuur kaga qaataan oo lacag bay ku helaan oo dadka shicibka ku cashuuraan oo qaar bay ku dul nool yihiin sida ciisaha iyo samaroonka iyo parasite bay ku yihiin cashuur bay dadka ka qaadaan qofkayba cashuuraanba imika ciisaha iyo samaroonka iyagu cashuur bay bixiyaan gibir bay bixiyaan waa parasite waxa ay ku dul nool yihiin marka si ay ugu dul noolaadaan oo u haystaan dadkani waa inay dawlad sheegtaan idan jabhad baa naada tiraad ciidsin mayso cashuur marka kuwan maamulka haysta meesha jooga waa inay sheegaan dawlad waxaan jirin inay dadka u sheegaan oo ku adoonsadaan oo ku dulmiyaan oo ku duleystaan oo toban iyaga lamid ah kuwooda ka socdana house nagarisna ay haystaan oo shacabka u tumaan kuwa adoonnaa oo Soomaali caayana ay samaystaan oo lacag siiyaan wasidaas laakiin wax dawlad leeyahay meesha ka jirto ma jirto wajahad dawladdu waa dawladda Soomaaliya iyaguna way ku qasbay inay qayb ka noqdaan imikana khaatumo ayaa aqoonsiga yeeshay de hoggaanka la isku dhaafay hogaamiyaha la isku dhaafaya talada la isku dhaafaya iyaga waxa sida u galay ee baabiyay ee qarribay waxa weeyaan Muuse Biixi oo kale ninkii xanuunsanay mujrimkii gacan ku dhiiglaha ee dibnaha qaniisanaay qabiilka la dagaalamaya daaroodka la yiraahdo una awoodi karin inuu wax ka qabto waxaanad awoodi karayn gacantaanad gooni karayn waa la dhukadaa ee isku dayay inuu dagaal ku qaado wixii ka raacay waadiga og laakiin hogaamiyaha fiican waa Firdhiyo kale waa Daniyo kale cadaawadarka ay ciidankiis awr bay wateen dameeray wateen farday wateen shicib bay ahayd way socdeen gaargagixisadii bay la dagaalamayeen reerkani soo direen iyo la dagaalamayeen ilfahay u saareen xidadaday u siibeen koonfurna iyagunba jooga shabaabna iyagunba xagga dambe ka fadhiya behind the bar spin doctors baa la yidhaha kuwa xagga dambe fadhiya ee bamka u soo dhiibaya waa spin doctors waa iyaga marka ujeedadeedu waxa weeye iyaga ayaa ka xun iyaga 100 jeer ka xun shabaab iyo daacishba iyaga ayaa ka xun waayo Soomaalinimay diidan yihiin midnimada Soomaaliyeed bay diidan yihiin qarannimada Soomaaliyeed bay diidan yihiin jiritaanka Soomaaliyeed bay diidan yihiin dawladnimada Soomaaliyeed bay diidan yihiin waxa iyagu yihiin bay diidan yihiin oo Soomaali bay dibadaha ku joogaan Soomaa oo Soomaali bay sheeganayaan wixii ay ku joogeen dibadda ay diidan yihiin dawadoodii bay diidan yihiin ee carruurtoodu ku joogeen ee dhaqaalaha dunida kaga helayaan bay diidan yihiin oo dhinay garanayaan marka iyaga is cunaya marka Soomaali baarlamaanka iyo dawladda Soomaaliyeed baan cadow baa idin la walaala shabaab kuwana ka daran dhaqaale ahaan in lagula diro weeyaan in wax flexibility ama wax furfurnaansho siyaasadeed loo sameyn weeyaan oo la cunaqabateeyo oo dawladda awood kasta ay leedahay joojiso oo diyaaradaha ka joojiso oo maraakiibta ka joojiso oo wax kasta baa mid jira albaabada u xidho waayo wad arkaysaan ilmahoodii bay ku koranayaan cadowtinimo Soomaaliyeed ayaa ilmahoodii ku koranayaan aad baan Soomaaliyiin soo salaamaya meel kasta dunida joogtaanba